waxaan sidoo kale goluhu isla gartay inaan aniga iyo wafdi aan hogaaminayo aan ku tagno caasimadda dalka iyo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed si aan gogol xaar ugu sameeyno inay gogoshaasi miro dhasho laga soo qayb galo lagu booriyo in marxaladan Soomaaliya waxay dadka ka sugayso ay laga helo waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogoshii wada tashiga ee Puntland u qabsoontay una hirgashay in gogoshaasna ay u qabsoonto una hirgasho haddii Ilaahay idin ka dhigo waan ku rajo weynahay xukuumad ahaan inaan aanan waxba hakran doonin diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan loogu bartay inaan kaalinteena qaadano waxaan rajaynaynaa adkeynta midnimada Soomaaliyeed hirgelinta nidaamka federaalka iyo horu socodka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan sidoo kaleeto cid walba oo deegaanada kaleeto iyo maamulada kaleeto ee Soomaaliya ugu baaqayna iyagana in ay Puntland wadada ay martay oo ah wada tashiga oo aan cidna laga saarin talada in la wada qaato dalka Soomaaliya dadkiisa dhan buu u baahan yahay mid xukuumadaha ku jira mid golayaasha baarlamaanada ku jira iyo waxgaradka kaleeto ee aan ku jirin maxaa yeelay siyaasiyiintu xilka nimba mar buu hayaa kuwa hadda jooga kuwa ku jiray kuwa imaan doona marka waxaan rajaynaynaa geedi socodka nabadda Soomaaliyeed inaan cidna banaanka laga dhigin dadkuna ay wada sinaadaan lagana faa'iideysto awoodahooda kala jira iyadoo ay hogaaminayaan hay'adaha dastuuriga ay dadku doorteen oo sharciga u leh inay hogaaminta dalka iyagu leeyihiin iyagoo lagu haysan annagoona lagu haysan haddaan reer Puntland nahay mandatekeen uu yahay ayaa haddana si aan u ilaalino midnimada iyo wada jirka shirkaan u qabanay talooyinkooda u dhageysanayna wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee deegaanada ka jirta wax badan oo ku farxnay baan aragnay dhaliilo badan oo aan leenahay baan aragnay waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino wixii wanaaga hore u jirana aan sii adkayno horena u sii soconno waan rajaynaynaa in shirka iyo gogosha Soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumadana uu igmaday inaan haddaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doono si dhabana aan u geli doono dhawaana aan diyaarintaas iyo kala soo tashan doono waqtiga ku haboon iyo sida uu haboon iyo sida uu noqon doono dadka talada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah qodobka labaad oo shirka maanta looga hadlay wuxuu ahaa xanuunkan aad u fidaya ee adduunka waxaan marka ugu horeysa Ilaahay uga mahadnaqaynaa muddadii shirkaas noo socday oo cabsi badan laga muujinayo isku imaantiga iyo dadka inta laga isku yimaadaan inuu Ilaahay uu noo yasiray oo xilli shirkaas uu noo dhamaaday aan xanuunkaasi Soomaaliya soo gaarin khaasatan Puntland uu soo gaarin Ilaahay baa mahadiisa muddadii shirku maalintii uu gabagabada noo ahaa ayaa hal xaalo laga sheegay magaalada Muqdisho oo iyadana aad loo xadiday oo meel ku haboon lagu hayay qofkaas si aysan u fidin waxaan rajo weyn ka qabnaa in xaaladaas ay ku ekaato Soomaaliya oo aysan xaalado kala digin maadaama Soomaaliya ay leedahay xuduud dheer oo furan maaragtay isku socodka geeska Afrika uu ballaaran yahay wax walbana ay dhici karaan dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad deegaano kala duwan iyo dawlado kala duwan ku dhex jira khaasatan dawladda Kenya iyo Ethiopia oo labadaba runtii dad Soomaaliya wax ka degaan oo labadaba xaalado laga helay waxaan runtii xukuumaddu garowsatay marxaladan inay tahay in go'aano rasmi ah laga qaato arrimahaas wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhammaan goobaha waxbarashada oo ugu horeeyaan dugsi quraanada dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadahaba muddo 2 isbuuc la hakiyo iyadoo la ilaalinayo sixada iyo caafimaadka dadka reer Puntland waxaa sidoo kaleeto dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhammaan isku imaadyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isu yimaadaan kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo samaysmi karo waxa hay'adaha dawladda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee jooga la farayaa inaysan qaban karin wax shirar ah iyo sibinaaro ku aadan marxaladda labada wiig ah
sidoo kale waxaa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadaystay masaajidada aad loo yareeyo dadka badan ee ku wada tukanaya oo ay runtii marxaladan dadka intiisa badan ay ku sugnaadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeenna caafimaad iyo ka jawaabidda haddii xaaladahaas oo kala yimaadaan marka waxaan u baahannahay ka hortagga inaan aad u xoojinno waxaa sidoo kale xarumaha dawladda dadka ka shaqeeya la farayaa in ay iyaguna aad u yareeyaan dadka dawladda shaqooyinka ay u qabanayaan imaanshahooda iyo xiriirkooda la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaarka inta ah intii suuragal ah inay meelo kala dhaadheer ku shaqeeyaan si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kaleeta ah guud ahaan waxaan rajaynaynaa in loo dhaganuglaan doono guddiga dawladdu u xil saartay arrimahaas oo iyaguna soo jeedin doono qodobada muhiimku intaa ka sii ah guddigaas uu madax u yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaa la qaaday tallaabooyin muddadan u dambaysaba waxaa la sameeyey goobo haddii dad wax lagu arko lagu karantiilo waxaa la sameeyey qaybo khaasatan meelaha dalka laga soo galo waxaa aad loo xoojinayaa dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka in intii suuragalah la xakameeyo si dhaba qaybaha kale ee dawladda iyo bulshaduba ay ula shaqeeyaan waxaan rajo weyn ka qabnaa ilaahay idankiis in xanuunkaas uu ilaahay na hareer mariyo noogu maaragtay naxariisto tabardarrada aan leenahay runtii aad u hooseysa imkaaniyaadkeennu aad u xadidan waxaan sidoo kale ku boorinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka maaragtay ummadda quudisa in ay ka taxadaraan sida adduunka ku socdo oo aad moodid isku socodkii aad inuu u yaraanayo in ay waxyaabaha quutu daruuriga ee dalka u baahan yahay loo helo stoogyo ku filan dadka haddii ay xaaladdu intaa ka sii adkaato waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu masaa'ibkaas uu na hareer mariyo waxaase dawladdu ay gashay guud ahaan dareen ah in ay qaadato dareen taxadar xoog leh waxaa la joojiyey dhammaan kulamada dawladdu ee leedahay laga bilaabo golayaasha wasiirada golayaasha wasaaradaha booqashooyinka wasaaradaha iyo goobaha kaleete dawladda waxaan aad ugu boorinaynaa dad kasta oo aan rajaynaynaa inay dib u dhigtaan kulamadii noocaas aha waxaan aad uga cudur daaranaya anigoo madaxweynaha ah fursad qaaliyan ay ahayd kulanka maanta lagu soo ururay halka markuu shirku dhammaaday inaan dad fara badan oo waxtar leh oo waxgarad ah oo ismad ugu muhiimsan yihiin oo dalka yimid in aan fursad fiican uga heli lahaa inaan si fiican fursadda habiyaheed u wada sheekaysano laakiin xaaladan jirta awgeed waxaan aad u rajaynaynaa in dadka oo dhan ay isla qaataan in aan yarayno xiriirka iyo contactiska abuuri kara hal xaalo oo abuurantay ayaa dhibaato keeni karta baqdintaas waxaana geliyey dawladihii naga xooga waaweynaa waxa ay samaynayaan markaan aragnay runtii aad baan cabsi noo gashay waxaan aragnay waddamadii horumarsanaa oo cidlo ah jidadkii dadkii aysan shaqaynayn xafiisyadii dawladda aan imaanayn iskuulladii la imaanayn guryihii aan laga soo baxayn marka annaguna weli waxaad moodaan inaan xaalad dabiiciya weli isaga noolnahay intii hore runtii ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inta dambena waa ka rajaynaynaa inay waxaas dhicin laakiin taxadarkaas iyo taladaas guud oo dawladdu markay falanqayso waxay qaadatay dhammaan in laysbaro oo la xakameeyo nafta oo contactiska la yareeyo guryaha xataa marka la wada joogo inkastoo guryaheennu ay maaragtay ay iska kookooban yihiin laakiin haddana in aad loogu dadaalo in space fiican la sameeyo ardada iskuullada laga xiray macnaheedu maaha inay goobo kaleeto isugu tagaan ay ku cayaaraan ay aadaan waxa weeye meel kasta carruurtana in guryaha lagu hayo iskuulka ma jiro markay noqoto iyaysan makhaayadaha iyo cayaaraha iyo meelahaas aadin waalidka waxaan faraynaa inay carruurtooda guryaha ku haystaan oo aysan guryaha ka bixin oo ay xakameeyaan maxaa yeelay khatartan waa khatar dalalkii horu maray ay wax ka qaban waayeen sida xogta wasiirku uu noo sheegay shalay oo keliya dalka talyaaniga oo tiro 300 iyo ziyaado qof ah ayaa ku geeriyootay oo xanuunka u dhimatay geeridu runtii aad bay u kobcaysaa marka waxaan u baahannahay inaan taxadar badan muujino sidoo kaleeto dadka reer Puntland ee qurbaha jira waxaan ka codsanaynaa in safarada ay u soo galayaan dadkooda iyo dalkooda inay hakiyaan
inta marxaladdan ay ku jiraan oo annaguna aysan maaragtay waayo xanuunkan inta ugu badan waxaa dalalka keenay waxa weeye waa hijro soo hijroonayo meelo kale laga keenayo sidoo kale dadka reer puntland waxaan faraynaa iyaguna inay safarka joojiyaan sababo kasta oo jiro wixii laga maarmi waayo mooyaane inaan safarada yarayno inaan goobaha la isugu imaanaya yarayno inaan guryaha ku sugnaano muddadaas wax weyn bay naga taraysaa ka hortagga xanuunkan waxaan ugu baaqayaa shacabka puntland inay u dhognuglaadaan tacliimaadka iyo wararka ka soo baxaya dowladooda oo ka talinaysa maslaxadooda iyo caafimaadkooda aad baa u mahadsantihiin